innaguna maxaynu fiirinaa nolosheedii hore maxay ahayd. Gabadha tani gabar ma tahay, gabadha tani intee nin bay soo shukaansatay, gabadha tani intee nin bay hore u soo aragtay, waxyaabahaasaynu fiirinaa. Ragguna maxay ku maqan yihiin waxeedii tagay, dumarkuna maxay ku maqan yihiin waxa soo socda. waxaan kugula wadaagayaa muuqaalkan laba waxyaabood. Markaad nin raga tahay hase yeeshee guurdoona rabtid inaad gabar shukaansatid, waxaad iska ilaalisaa labadan waxyaabood. midda koowaad waxay tahay in kow aad gabadha marka ugu horeysa ee ay ku aqbasho oo xiriir aad la bilowdidba in qalbigaaga oo dhan iyada aad siisid. ogow jacaylku sidiisaba ama qofkan inaad jeclaatid ama qofkani in uu noqdo qof u qalma nolosha inaad la wadaagtid waxay qaadataa process. ma ahan waan ku arkay rag badan waxay jecel yihiin waa sawir iyo cod ay maqleen oo kaliya. qof si toos ay u arkeen maaha. sawir ay internetka ka arkeen iyo cod telefoon ay kula sheekaysteen ama telefoon ha noqoto si toos ah ama ha noqoto inay WhatsApp-ka iyo Messenger-ka iyo Snapchat-ka waxay doonto ha noqoto inay online-ka un kala sheekaystaan wuxuu online inuu ahaado ee si toos aysan u aqoonin. haddaba waxaad samaysaa marka ugu horeysa ee aad gabadha tan jacayl u soo bandhigatid kadibna ay ku aqbasho waa ku jeclahay adiga maahane cid kale ma jirto dunida wax la dhahaa ma jiraan. waayo qofkani in uu noqdo oo uu gaaro heer in aniga naftayda uu noloshayda u qalmo. waayo rag badan dhibaatada haysata waxay tahay naftooda isma qiimeeyaan, qiimaha ay leeyihiin ma arkaan. waana waxa keenaya inuu ninku caawa gabar xiriir la galo asbuucan gudihiisa intuu ku jiro jeebku ka hadlaya. ninka Soomaaligu jeebku ka hadlaya waana qalad. jeeb inaad ka hadashid ma ahan. waxyaabo badan oo dhaawaca waxa keena waxa kamid ah in ninku uu jacaylka gabadha ka iibsanayo. intee in leg baad iibin karaysaa marka? intee in leg baad lacag siinaysaa gabadhaas inay ku jeclaato, ku rabto, kula socoto, kula joogto? ma soconayso. marba dareenka labadiina caadi qalbigiina ku jira wax kale oo u dhaxeeya meesha hadday yimaadeen oo dan ah oo la isku wato ma sii jirayo xiriirkaasu. waa xaqiiqo dhaba. wax saddexeeya hadduu meesha yimaado ama lacag ha noqoto ama qof ha noqdo waxay doonto ha noqoto. wax saddexeeyaba haddii meesha uu yimaado labadiina dareenka qalbiyadiina ku jira wax intaa ku lamaansanay hadduu jiro ma guuleysanayo xiriirkaasu. adigu marka si ay kugu kala baxdo gabadhani inay dhab ka tahay, inay mustaqbal rabto inay kula wadaagto, inay gabadha guurdoonka ay tahay dhab ka tahay, inaad dooqeeda tahay iyo wixii la mid ah waxaad iska daysaa jeebkanaad ka hadlaysid. rag badan baa marka waxay isku dayaan gabadha qalbigeeda inay iibsadaan, dareenkeeda inay iibsadaan. maalin walba xafaayad cusub bay u xirayaan qalbigeeda. waa mar hadiyadkeen, mar halkan maxaa ku cad, maxaa ku madow. waxyaabahana badankooda ma sii wadi karaysaan markaad berri guursataan. markaad guri la gashaan ma sii wadaysaan. hubaal weeye. maanta rag badan 10 sano hadduu reer lahaa goorma kugu dambaysa xaaskaaga hadiyadaad u keentid? waa la ceeboobaya haddii hadda dib taariikhdaad isugu laabato accountigaaga fiirisid hadiyadaad xaaskaaga u soo gada malaa waxaan u maleynayaa 7 sano 8 sano ka hor baa kugu dambaysay. maxaa isbedelkaa keenay? markaad la socotay 2 sano ba hadiyadaad waday. cashagee, movie u raac, wax walba u samee, ha dhicin, ha jabin baad lahayd. midda marka qaldani waxay tahay in iyada aad iswada siisid oo tiraahdid 100% waan ku jeclay. u fiirso dumarku inta badan marka nin ay noqoto dhankiisa gabadha marka uu xiriir u soo bandhigto horu ka jeclaanaya. laakiin iyadu muuqaalka isagu waxa laga yaabaa muuqaalka inuu qanciyo, laakiin iyada muuqaalka markay aragto intaa kuma ekaanayso. waxay leedahay intan maxaa u dheer, ninkan muxuu haystaa, muxuu ka shaqeeyaa, xaaladiisa dhaqaale maxay tahay, waxyaabo badan bay fiirinaysaa. adigu waxyaabaha inaad fiirisid marka waa laga maarmaan. sida iyadu mustaqbalkeeda inta badan dumarku waxay fiiriyaan waa mustaqbalka ninkan ay la wadaagi doontaa siduu u ekaan doono ayay hadda ka qiyaas qaadanaysaa. dhaqaale ahaan xaguu jooga, aqoon ahaan xaguu jooga, qofkani xagee taagan yahay nolosha isaguna fahantiisa keligii. innaguna maxaynu fiirinaa nolosheedii hore maxay ahayd. gabadha tani gabar ma tahay, gabadha tani intee nin bay soo shukaansatay, gabadha tani intee nin bay hore u soo aragtay. waxyaabahaasaynu fiirinaa. ragguna maxay ku maqan yihiin waxeedii tagay, dumarkuna maxay ku maqan yihiin waxa soo socda. qof walbana dantiisu eeganaya. adiga marka processka qofka aad rabtaa marka waa noocee, maxaad uga baahan tahay qofka aad rabtid nolol inaad la wadaagto. waayo markaynu xuduud iyo xad u yeeli weyno nafteenna waxa ay rabto aynu xadayn weyno way waxa dhibaatooyinku ka yimaadaan. qalbi jabka, isku dhex yaacsanaantaana keenaysa. aadanba garanayn adigu naftaada waxaad uun dumar ma tahay, xijaab ma xiran tahay, goonna ma xiran tahay, dad intaasay kaaga eg tahay.
waana waxa keena rag badani in markay guursadaan ka bacdi ay soo calaacalaan saan moodayay maaha sideen si kale ugu noqotay dumarka laftigooda way ka dhacdaa laakiin tani hadda waxay ku saabsan tahay waa ragga soo kow gabadhu akhlaaq ahaan xaggay joogtaa diin ahaan xaggay joogtaa wax aqoon ahaan xaggay joogtaa dhaqaale ma fiirinaysid laakiin waxaa fiirinaysaa waxyaabaha kale ee dumarnimo looga baahan yahay xaggay joogtaa adigu marka waa inay waxaas ku qeexan yihiin haddaysan ku qeexnayn gabar walba oo aad aragtidba Soomaaliya arag ragga qaarkood waxaa jira xataa islaamaha waaweyn ee dhalmo go'ay xataa kama badbaadaan wuu iska rabaa waayo ma yaqaano waxa uu rabo wax walba wuu iska rabaa dumarba ma u egtahay haa waa tayda tan marka kuma soconayso midda labaad waxay tahay in badan oo idin kamid ah waa igula yaabi doontaan kuwa badan oo idin kamid ah waad igu diidi doontaan laakiin kuwa yar oo idinkeeda kamid ah uun baa ila fahmi karaya oo yaqaano arkay waana hubaa inay jirto xaqiiqana shaqaynayso tani waxay tahay marka aad tusaale ahaan gurdoon tahay gabar aad si toos ah ula socotid oo maanta balna iska qaadeen aysan jirin laba gabdhood ilaa saddex gabdhood baad u sheekaysaa welina waad kala garan laadahay teebaad u xulataa u doorataa mustaqbalkaaga marka gabar kale oo isleedahay kuwan dhan waxbay dheertahay ama dhaantaa aad heshid hase yeeshee gabadhaas markaad wax u soo bandhigtay ay ku weydiiso ku tiraahdo wax dumara oo aad la socotid ma jiraan runtaada ha ka cararin rag badani meeshan way meesha ay kabaha ka cararaan oo yiraahdaan maya cid lama socdo anigu maaragtay waxaan ahay adiga uun baa hadda kaa bilaabaya adiga may runtaada ha ka cararin dumarku way jecel yihiin inay tartan galaan meelaha qaarkood nolosha tan aan ku soo wado marka waxay tahay marka aad ay ku weydiiso su'aasha jawaabtaada waxaad tiraahdaa gabdho aan la socdo way jiraan laakiin weli mid aan noloshayda u doorto ma kamaanan helin waxaan rajaynayaa inaad adigu noqon doontid midii noloshayda waxaan arkaa inaad wax dheer tahay wixii markaa iyadu ay dheer tahay ee kuwa kale kaga duwan tahay u sheeg ka bacdi soo maahan ha fiiri siday kugu jawaabto hadday ku tiraahdo nin naaga kale la socda xiriir lama geli karo iyo wixii lamid ah waa mahadsan tahay ku dheh sida ku sii daa ha baryootamin sababtaana kuu sheegaya waayo marka aad baryootantid ogow wax kasta oo ay tahay maad ogaanin gabdhahan kale waxa ay yihiin ama weli aad isugu dhiibi laadahay oo mustaqbalkaaga aad uga dhex arki laadahay baa jira sax tani inta aadan bagaarin heerka kuwa kan mustaqbalkaaga sababtaadan uga dhex arkin iyaga kaaga dhex muuqata intaysan iyada kaaga muuqan waxay rabtaa gabdhaha kale oo dhan horta inay kaa soo goyso ka bacdina ay ku tirada anigana way kan inta badanna waxaad ogaan doontaa in sida kuwa kale ay yihiin iyo kuwa kale wixii aad ku diiday inay qaarkood iyadu leedahay adiga cid la soo istaagaysaa marka ha samaynin si cad marka ugu sheeg ogowna mar walba oo aad runtaada ka carcararaysid oo nin runtiisa ka gagabanaya aad tahay dumarku waxay kuu arkayaan nin daciifa inaad tahay daciifnimada dhan ee laguu sheegayo waa inaad runtaada wajihi karin wixii doona ha dhece runta sheeg adigu ha ka baqin rag waxaa jira xaaskiisu hadday tiraahdo hebelow su-aal maku weydiin karaa waa gacmuhu ka dhididaya maxaa ka baqaysaa waa qof bini aadama su-aasha way ku weydiin kartaa haddii wax qalad oo aad ka gashay ay tahayna waad ka wada hadli kartaan aan ku kala tagna hadday ku tiraahdana dee waddadu way furan tahay marka hore maxaa qaladka kuu geeyey taasaa isweydiin mudan sax maxaa qaladka marka hore kuu geynaya qaladka idin kala geyn kara qofkan maxaa marka hore kuu geyn kara oo bini aadan baan ahayo waxbaa iga dhici karo waxaasoo dhan waa marmarsiinyo dad badan ay isku sasabaan nolosha goormaa run u wajahaysaa marka haddaa weligaa uun sasabaada ku jirtid naftaada aad sasabaysid aad dhoodhoobaysid waxa ay ku qaldan tahay maalin walba aad qof bini aadama oo nolosha aad la wadaagtay ama qof aad ballan ka qaaday ballankii aad uga baxaysid oo qalbiga ka jabinaysid goormaad ishagaajinaysaa goormaad istoosinaysaa xaqiiqo dhabana way jirtaa oon rabo meeshaan inaan ku gunaanado ninku markuu naaga badan yahay oo dumar fara badan uu la socdo ninkaasu waa ninaan horta shaqo lahayn waa nin aan shaqo lahayn waayo ma dhici karto 3 4 5 6 dumara inaan maalinti walba wada waco mid walbaba ilaa waxay iga filaysaa og tahay sidii ninkii islaamihiisu intay islaamu qabay baa la yiri baa aad way masayr heblaadiga jeceshay waxaasuu ka bixi waayey maalinkii dambe dhammaantood meel isugu keenay wuxuu yiri qofka aan taabto qofkiina aan taabto ayaan ugu jecelahay hal midna iga ballan qaada midda aan taabtaayaysan cid kale u sheegin sirtaa iga ballan qaada inaad qaranaysaan mid walba waxay tiri haye dhammaantood waxaa la yidhi mid walba madaxu ka taabtay islaam walba iyadoo faraxsan bay meesha ka kacday adduunka caqli baa wax lagu wadaa weliba caqligaasu markuu cadaalad ku salaysan yahay weliba caqligaasu marka uu yahay caqli aan khiyaano iyo laqdabo iyo lagooyo iyo qalbi jabin aysan ku jirin